waxaan rabaa inaad midnimadiina aad ku mintidaan arinta ka aad ugu wareeriseen oo difaaca dalkana idinkoo midnimadiina oo mid ah in aad waxaad ku biirinaysaan aad ku biirisaan dhowr jeer ayaa halkan waxa laga hadlaa warkaasina waa ugu batay 5 sano ayaan kuugu daraynaa horta ma ay weydiisan inaan rabayn kale ma ay weydiisan albaan sheegayaa xoreyn hoos ay kaga lifaaqan tahay waxa la yiraahdo mansab raadin iyo madaxtinimo ma guulaysanaysa anaan inta sheegay haddaan dabcaaniga cabdulla haddii aan ka been idin sheego idin siro oo dagaalka ilaa December gaarsiiyo ka bacdan ilaahada lama ma guulaysanaya waxaan ku guulaysan karaa inaan la imaado niyad saalaxa waxaan ku guulaysan karaa inay rab dib iga tahay anigu dhulka inuu xoroobo been idin sheegay haddii la xoreeyana wallahi wax ka rabeen anigu intaasaan igu filan reer Puntland 5 sano ay doorteen waa ku mahadsan yihiin wax badan intaas aniga ideeqada maanta ina madaxweynaha Puntland ahay meesha ugu filay waxaan iimaan laanta ku filayaano waxaan ka helay waxaan wareerahay meesha ma yaalaan cirra iga soo baxday shan wiil yar baan ahay marka halkani aan ka rabnaa hadda xataa in waxba nataray oo dhaqaaleedna na siinay noo duceey hana habaarinina sababta idin sheegaya waa arkaan aniga Facebook baan galaayo in badan ay habaaraysan arkaan waddan marka qaar haddaan habaartaan anoo habaaran baa idin la joogaya haddaan taageertaan noo duceysaan anigoo duceysan oo Cabdi Khadar idin la joogaya dilaahay aad iyo aad baa mahadsantihiin خير يا برواقة إني رجالي ما سنتين